dhinaca kale u leexan lahayd dhan ay dhimasho ahaan lahayd dhanna ay naafo ay ahaan lahayd laakiin allah muusan dhihin ilaah ayaa nagu badbaadiyey ilaah ayaana sababay in ay mucjisadaas ay dhacdo alxamdulilah calaa kulli xaal waxaan rajeynayaa insha allah anigu waa ku cimri qaatay waxaan rajeynayaa saaxiibada i daawanaya ayaguna inay ku cimri qaataan ay ilaahayna ay u dhowaadaan hadduu alla idmo xabaddu anuu markay igu dhacaysa dadku waxay isleeyihiin bilaal ma dagaalamay wax muu sameeyey qofka muu arkay maya anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday xabaddu sida igu dhacday ogaal lama sii fadhine toosaan dhulka ugu dhacay toos markaa dhulka ugu dhacay waxyaabaha cajiibka leh ee aan ka xasuusta waxaa ka mid ahayd xoogaa ogaalkayga wuu maqnaa anigu maan ogeyn mar allaala markii aan xoogaa aan mantagay dhiig iyo cuntadii aan soo cuna aan mantagay baa gabar isoo dul istaagtay oo ashahaadkii ii qabatay ashahaadkiiaan qabsaday markii hore wax awooda maan lahayn awoodaan yeeshay ilaaha awood leh awoodaan yeeshay oo aan ku hadli karo ashahaadkiiaan qabsaday ashahaadkii markaan qabsaday waan soo fariistay maanan dhihin dadow i badbaadiya maanan dhihin halay badbaadiyo waxaan afkayga ku qabsaday ashahaadka iyo ilaahayow i badbaadi waan fariistay gabadhii ay soo dul istaagtay kumanaan kun oo qofood waa i dul taagneed ma arkeyna ilaa gabadhaas mooyey gabadh fanax leh xijaab weyn wadato oo wejigeeda nuurka baxaayo oo ashahaadka uun afka igu hayso bilaal ashhaado ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna maxamed rasuul afka igu qabatay almuhim ashahaadkii marka afku qabsada oo awooddii oo ilaahay isiiyey oo isoo fariisiyey oo aan gabadhii aan arkay oo laysoo qaaday laysoo dhaqaajiyey mar allaala markii aan isbitaalka aan imiday mar ogaalkayga wuu baxaayey waan soo laabanayey waa baxaayey waa soo laabanayey mar walba waxaan ilaalinayey qalbiga iyo dareenka waalidkayga waxaan isku dayayay mar walba aan soo nibdaado inaan familka aan qanciyo in aan hadal aanan dhihi karin aan iska qasbaayey almuhim ugu dambeyn waxaa dhacday in dhiig joojin la ii sameeyo meeshii la iga talo then habeenkii xilli dambe qol la i geeyo maalinkii dambena qalin la igu sameeyo waxa la yidhaha matooma meesha gashay dhiiggiyaa laga soo shubay tubbaa la suray alxamdulilah calaa kulli xaal maanta heer waxaan marayaa aan socon karo hadalkayga walow yuu badanin laakiin aan hadli karo alxamdulilah cuntooyinka qaar aan la ii ogoleen qaarna waa la ii ogolyahay cuntada jilcana la ii ogolyahay alxamdulilah intaana waa ilaahay mahadii maalinkii aan dhaawacmay tiraka 5 maalin waxba maan cunin waxna maan cabaynin faleen baa wax ku cunay waxna ku cabaayay hadalkayguna muusan badnayno hadalka waa la ii diidanaa maantana alxamdulilah waa hadli karaa waana idin sheekayn karaa in badan waxaana rajeynayaa insha allah inaad intaas aad igaga bogateen waana idin mahad celinayaa dhammaan dadka wax soo diraaya iyo dadka sheer gareynaya ee meel walba gaarsiinayo asxaab fara badanna waan rajeynayaa insha allah inaad gaarsiisaan hadduu alla idmo waa mahadsantihiin sharafi karaama ايوه باشينا والله مقلا سو دو ايوه متان سنه باشينتا هل مر عليو دريا بلال تيم جامع ومعدسن تahay boqorada Puntland waad mahadsan tahay dhamaantiin waa mahadsantihiin تيم جامع libaaxa ku soo dirto walaalka ajriya xasanaad Allah ka siiyo boqorada Puntland awurka gudaha u soo dirtana ajriya xasanaad Allah ka siiyo تيم جامع soo diray gaari gudan yugisa يا اوكي تيم جامع waa qof gaariga soo dir gudan mid baan ku sheegayaa ayuba dad waxa jira saaxiib giftiga adiga ku soo qaldayo marka dadka wax u sheegaynaa dhalinyaro idinku maasan bilaal ku dhufta ma in waxa laga yaabaa inaysan ka ahayn baa laga yaabaa sax in garaneen dhalinyaro hadiinan la socon waxa sameeysan waxa ku dhufanaysaan bilaal akoonkiisa meeshaas bilaal bishaa ku qoran tahay dhag waxa ku soo baxay giftiga marka ku dir waan maasantiin baajina soo dhaw أجل هذا الوقت أركان. الحمد لله بسم الله إله ما هذا سكله دواء مقلسين صح؟ نيوهرتا سومالي هرتوا ماسنتين ميرول بقى جوكتان نيوهرتا بلال بلشاوي وحا اسكوبرناي تيك توك اسكوبرناي وحا اسكوبرناي إله درتيسا اسكوبرناي
bilaal waxyaabo badan isla qawaneynay dhanka dadka hadaa caawinayno hadaa wax aruurinayno marka inta ka hor aqisa waxaa dhacday marka geeda lacagta oo aruurinaynay bilaal haweenuu isoo wacay asoo oyna oo ordaayo isoo wacay wuxuu ugu dhahay ani waa dhintay hooyo iyo dadka kale gabdhaha guriga joogaan Soomaali ii gaarsii idinka mas'uulka ah war waxaa dhahay bilaalow maxaa kugu dhacay markaas ugu dhahay waalidii rabaa dad ay soo ceersanaaya markaas ugu bas ilaaha ka badbaadiyay marka ma sha Allah marka suuxi kale waxaan dhahay maxaa haysaariya waa bixisa wadanka dib u laawo ani horta aad ugu xumahay bilaal haweenkii xabada ku dhacaysa gawra ii sheegtay waxay u dhahdeen inuu bilaal dhintay gawar kale waa la laawacay wiilna waa la laawacay marka saamir ugu dambeysani marka saan noqday ma ogi haweenkii kale suuxi kale amirkayga soo helay hooyadeeda ay ugu dhaxday maxaa kugu dhacay bilaal dhintaa dhee marka hooyadeeda bilaal dhintaa hooyadeeda dadka guriga dhan meesha dhan waa jabiga isbedelay anyway de marka kale waxa ogaaday inuu bilaal caafimaad qabo oo marka uu nool yahay hor safarkayga waa kasoo gaawi meeshii waa joogay waxaan de Ameerika iska adaa saaxiibkayga dhaawacmay marka howl badan aan taasha anyway horta hadaan soo gudbitaas aniga Soomaaliya hadda bilaal dhaawac waaye Muqdisho jooga bilaal waa ogtiin hooyadiisa asikaliisa oo carari jiray abiisa ogtiin inta ka hor uu dhintay wuxuu ahaa de wiil dhalinyaro oo iska fircoon oo Soomaalidaas u shaqeeyo qabiil aan ka seenin wax walba oo Soomaalida meel walba aada oo aragteen ilaa Hargeysa marka ma sha Allah horta ilaaha mahad iska leh maanta horta danaan haysaa bilaal maanta inta ma soo istaagi lahayn de anaga hadaan wax fiican haysan lahayn because de hadda bilaal waxa rabnaa inaan meesha ka wadno Turkiina geeno sababtoo ah de meesha xaaladeeda waa iska ogtihiin barnaamijka darad uu ka badbaadaa wili iska jirsaa oo maleenaayo ani fikradeeda mid kale da caafimaadkiisana inaan ku dadaalno because waa madi hooyadiisa asaa wiil oo asaa ordi jiray oo asaa guriga seen jiray marka lacagta u baahanahay lacag hal mar u kaadi lacag oo waxa u baahanahay de aan ninkan iyo wiilka kale inaan meeshaas aan ku geeyno oo waxa markaas macquul gal aan sameeyno marka dhamaantiin horta ma sintihiin qof walba meeshaan imaaday ducadiina horta bilaal meeshaan ku soo gaaray alxamdulillah ilaaha mahad iska leh Soomaali meel walba joogta u duceynayna anagana markeena Soomaalina waa mahad celinayna marka saxaaway bilaal hadeer anigu noo baahan yahay waa aragteen gaaju meel ku seexin jiray dhulku seexinaya si maamooyinkeena iyo ilmaheena oo wadanka qorfaasan oo caawiyo marka maanta maalintiis waaye waxa idin codsanayaa qof walba oo walaaltinimo inuu wax ugu soo diro bilaal mise inaan ku caawino bilaal si walaaltinimo ah because adduunkan qof walba maalin ay soo maraysaa marka walaalkeena maanta maalintiis la jooga insha Allah dhamaantiina waxa idin codsanayaa inaa bilaal caawisaan insha Allah waa ma santa yaxbulukaadi Mrs. Ailey aad ma santahay Mrs. Ailey abay thank you ibaha soo dirtay walaalka sharaf leedahay hal mar baan rabaa inaan u mahad celiyo dhamaan dadka giftiga ku taageeray bilaal nawaal baa u sareysa nawaal abay waa ma santahay ajri xasanaad Allah ka siiyo team Jamac sidoo kale adeer adna waa ma santahay ajri xasanaad Allah ka siiyo giftiga aad ku taageertay walaalka bilaal Bushaawi Miss Ailey adigana waa ma santahay giftiga aad ku taageertay walaalka idagale empire aad iyo aad u ma santahay giftiga aad ku taageertay walaalka bilaal Bushaawi Abdullah Yare aad iyo aad u ma santahay adigana inkastoo qaladay hase yeeshee waad ku ma santahay wax walba bilaal u sameysay Umar Qalbi waad ma santahay Qamar Qalbi waa ma santahay giftiga aad ku taageertay bilaal Bushaawi Cutiyo waa ma santahay giftiga aad ku taageertay bilaal Bushaawi ajri xasanaad Allah ka siiyo Hudo sidoo kale waad ma santahay ajri xasanaad Allah ka siiyo Bello Diamond aad iyo aad u ma santahay sidoo kale adigana KBB Sniper waad ma santahay iyo dhamaan inta kale ee sida wanaagsan u taageertay reer diini kibrey aad iyo aad u ma santahay taageerida aad taageertay bilaal Bushaawi 560 oo gifti ah baad ku taageerteen bilaal Bushaawi dhamaantiin waa ma santiin walina taageeradiina u baahan yahay u sheegay mid kale dhalinyarada North America inta taageerada ah hadduu alla idmacaawo waxa qorsheynayna ani wiil la Xasan Kaafi Roberto Hurdaya iyo ninkii la hayo Cabdimalik ina caawo dhamaantood isku xirxiro arjeenaya qofkii gifti diri karin waxa sameeyay GoFan kaasna de meesh bilaal TikTok-giisu saaraya maleenaya ina ku caawina arjeena insha Allah dhamaantiina
horta ducada muhiim waaye qofka caafimaadkiisana muhiim waaye marka please and please game marka ciyaarayna 13 milyan 20 milyan 5 milyan aan bixin jirnay marka damaanta waxaa la joogaa yaa Soomaali yaa walaal yaa hooyo yaa maxalla si bini'aadanimo maanta taas taaganahay please marka waxa idin ka rajaynayaa Bilaal oo u qalmaade wax walba maanta u dirno codsi waaye waa idin codsanaya Soomaaliya maanta inaan garab qabataan please waa idin baryayaa marka qorshaheena idinka fulin kara ilaaha fulin kara horta insha Allah laakiin Soomaaliya idinka fulin kara sababta ducadiina intaan lagu soo gaaray maalin walba u duceynayseen oo ka xuntihiin I know marka please and please qorshaha ina idinka fulisaan idinka codsanaya marka please ana caawiya mariish waa maadsantahay mariish baa ayadana timid oo gift u dirtay walaalkeed Bilaal Bulshaawi mariish aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa ajri xasanaad Allah ka siiyo giftiga aad ku taageertay madaxweynaha TikTok walaalka Bilaal Bulshaawi marka yaxbul aan siina marka ha hadle baajinho yaxbul haye aad ma santiin inta walaalkeen Bilaal Bulshaawi caawinaysa ilaahay meesha ka soo baxsan meel qeyb badan ugu bedelo marka Bilaal walaalkeen waa ka warqabtaan waa nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo walaalkeen oo dalka jooga oo in badan dad dhalinyaro caawiyay xilli adkaa la soo maray abaaraha naftiisan u huray marka waxaan niga codsanaynaa Soomaaliyeey adduunka waxa isku yahay aakhiraha iskuma aha waayo waa ka warqabtaan Bilaal inta macnaha uu sameeyay oo wanaaga oo walaalnimo iyo hooyoon Soomaaliyeed oo dhibaataysan uu qabtay ilaahay wax qabta marka waxaan niga codsanaynaa maanta inaan Bilaal tusno walaalnimadeena iyo Soomaalinimadeena mid kale hal mid baan nigu darayaa qabiilada iyo waxaas ya waxba ma taraan wax lagu diro tana maanta sadaqa oo iniga dhow oo walaalnimo oo ilaahay u dhawaanaysaan oo sadaqa oo walaalkan Bilaal Bulshaawi aad ku tusi kadaan walaalnimo iyo Soomaalinimo iyo jacayl iyo kalgacayl marka waxaas waxba ma taraan qabiil wax lagu diro tan oo kale aan walaal ma kaga faa'iideysano maanta Bilaal Bulshaawi walaalkeen intaasan kaga baxa ku soo dhaw baajin malwad dada waxaa dhahayaan wiilasha magacooda hasheyn ani Soomaaliya ka imaade meesha ka imaade dadka way garanayaan maanta hadduu Bilaal dhiman lahaa waxaan dhihi lahaynaa ducadiisa mise tacsidiisa dhigaynaa laakiinse maanta si wanaag Bilaal uu nool yahay marka qofkana intuu nool yahay in la caawiyaa fiican insha Allah hadeer waxa ka baqna ma jirto sababtoo qof alaal qofkii anaga oo horumarkeena oo wax noo sameeyay hadaan weyno mar walba xanuun waa ina iska dhimanaa noo fiican waxa ka baqay hortaani ma lahan hadeer sababtoo Bilaal hadduu saan ku min lahaa maanta waxaan dhihi lahayn Bilaal waa dhintay so anyway ilaahay taas horta ma aqbalin ma dhicin marka please waxa idinka codsanaya dhamaantiina Soomaalida dad isjecel oo walaal waaye Bilaal iyo dadka kale Soomaali inta joogto qof walba qof uu jecel yahay wuxuu ku jecel yahay wanaaga isku jecel yahay walaaltinimada isku jecel yahay maanta waxa ogahay Bilaal hadduu lacag heen lahaa intuu soo fadhiisto waxa xanuunsanahay Soomaaliya wax isiyaam dhihleen mise waxa ay qabtaa laakiin maanta hadeer danaan haysta dhamaanteena ayuu Carlo mise yaxbul hadduu awoodi lahaa mise ani hadaa awoodi lahaa wax walba anaga qaadan lahayn laakiinse maanta awood meeshaas inay say gaarsineena oo maleynaya laakiinse idinka wax walba Soomaalida ayaga wax walba Soomaalina waxa la dadka ugu fiican oo adduunka isku caawiyaan waaye marka please waxa idinka codsanaya meeshan hada 500 600 marayna I wish inaan gaarno 2 milyan iyo in ka badan marka hadafkeena saan ku gaarno qof alaal qofkii lacag heeyana waxa ka rajaynaa inuu Bilaal u tuuro qofkii Ameerika joogana marka GoFund la sameeyay hadeer aan lacag ma aruurinayo because GoFund kaas ku direena ayadana easy lacagtana asay u dhacaysa direct marka please na caawiya waa idin baryayaa codsi iga tahay maanta idinka codsanaya please marka inaan caawisaan isku dayna sababtoo ninkan ogtihiin mustaqbal uu leeyahay kaagsi daran waxa xanuun igu aani hooyadiisa asaa oo orday ani hooyadeeda ilmo badan ay dhashay laakiin sanin hooyadiisa kaligiis oo orday ka waran hooyadeeda marka darad u tagay waxa ani dhehaysa xasuustaa laakiin xanuun waxa igu Bilaal hooyadiisa asi kaligiis u shaqeynayay haday maanta laagiino hadduu ka fadhiisto is very sad aad bay xanuun badan tahay mise inaan weyno marka idinkana caawiya insha Allah